السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي مركله iyo muuqaal kale oo qurux badan muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa qiso dhaxmartay nin taajir ah iyo adeegihiisa hadaba qisadan waxay ku bilaabanaysaa sida tan bari baa waxa ahaaday mid kamid ah dadka ka shaqeeya guriyaha wuxuuna adeego u ahaa mid kamid ah dadka ugu caansan oo taajirsan tujaartu badana waxay yihiin dad caado u leh inay yeeshaan adeege ninkan taajirka ah waxaana caado u ahayd inuu raaco gaarigiisa qaaliga ah maalin walba goor kasta uu raaco gaarigiisa ninkii taajirka ah waxa salaami jiray ninkii adeegaha ka ahaa guriga balse kama uusan qaadin salaanta ninkii hantiilaha ahaa waxa uu arkay maalin maalmaha kamid ah ninkii faqiirka ahaa oo salad ku sida adeega gurigiisa taajirkii waxa uu ogaaday in adeegaha ama ninka faqiirka ah xaaladiisa ay liidato balse waa uu iska intiray waxa uuna ka soo qaaday isaga oo aan waxba arkin maalin ku xigtay qaadimkii ama ninkii adeegaha waxa uu albaabka hortiisa ku arkay salad ay ku jirto qudaar iyo adeeg noocyadiisa kala duwan adeegihii waxa uu qaatay saladii aadna waa uu farxay isagoo isweydiiyay halka ay ka timid saladan qudaarta ka buuxda maalinkaas kadib waxa uu si joogto ah u arkayay adeegii iyo waxyaabihii loogu baahnaa guriga ilaa xaaladaas ay noqoto mid joogto ah oo maalin walba ka baaqan waxay bilaabeen asaga iyo qoyskiisa inay isweydiiyaan halka uu ugu yimaado adeegan dhameystiran waxay isweydiiyeen waa kee ninka wanaaga badan ee qarsoon ee nagu sadaqaysta maalin kasta adeegan ninka adeegaha waxa uu ahaa mid u duceeya wuxuuna xaaskiisa iyo caruurta u dardaarmi jiray inay u duceeyaan asaga maalin maalmaha kamid ah waxa uu arkay dad aad u fara badan oo guriga hortiisa maraya kadib waxa uu ogaaday ninkii taajirka ahaa inuu dhintay dadka booqashadana ay aad u sii badatay laakiin waxa uu liita ee maalinkaas uu xasuustay ayaa ah in saladii uusan keenin ninkii wanaaga u saaxiibka ahaa xitaa waxa uu maleeyay ninkii adeegaha ahaa in adeegii ay kaga hormareen oo saladii ay qaateen sidoo kale maalmihii xigay ma uusan arkin saladii waxay maalmo badan soo martaba waxa xumaaday xaaladii nololeed ee guriga intaas kadib ninkii adeegaha ahaa waxa uu go'aansaday in uu booqdo xaaska ninkii taajirka ahaa waxauna ka dalbaday in lacagta uu ku shaqeeyo ay u kordhiso ama uu raadsado shaqo kale naagtii taajirka qabay ayadoo aad ula yaaban hadalka ninka adeega ah ayaa waxay weydiisay inka badan ayaad nala joogtay mushaarkaagana waa uu kugu filnaa mana soo caban jirin hadda maxaa jira kadib waxa uu u sheekeeyay qisadii salada waxay weydiisay imise ayaadan saladan helin oo aad la'dahay waxa uu jawaabay inta uusan geeriyoonin odaygaaga intaas kadib adeegihii naftiisa ayaa waxa uu weydiiyay waa maxay sababta keentay in saladaadii la waayay dhimashada ninka taajirka ah kadib taajirka miyuu ahaa ninka ii keenayay salada intaas kadib ninkii adeega ahaa waxa uu soo xasuustay sida uu u dhaqmi jiray ninka taajirka ahaa iyo in uu salaanta ka radin jirin kadib waxa idin soo daadatay xaaskii ninkii geeriyooday intaas kadib waxay go'aansatay inay sii joogtayso wixii uu bilaabay ninkeeda waxa soo laabatay saladii khayrka markan salada waxa gacanta ka saaray adeegihii wiil uu dhalay ninkii taajirka ahaa mar walba oo ninka adeega ahaa loo keeno salada waxa uu mahad celinayaa wiilka isagana uma jawaabin mar kale ayuu u keenay saladii wuxuuna adeegihii si cod dheer ah ugu mahad celiyay wiilkii intaas kadib wiilkii ayaa soo laabtay wuxuuna ku yiri ha ii qabanin waayo maqalka ayaa daciif ka ahay sida aabahayga oo kale intaas kadib adeegihii ayaa bilaabay in uu si daran u ooyo waxa uuna yiri imise ayaan xumaan ka maleysanayay dadka kale annaga ma dareenno mana isweydiino mana fasirno sida ay nolol dhaqmaan dadka qaarkii iyo arimo annaga aanan jeclaysan ay u sameeyaan laga yaabee inuu cudurdaar jiro annagana aanan ogeyn